السلام عليكم magacaygu waa maxamed mawlid muuqaalkan maanta waxaan kaga hadlaynaa boqor kamid ah kuwii ugu awoodda badnaa caalamka soo mara dawladda Cusmaaniyiintuna waqtigiisa ugu awoodda badnayd boqor ama Sultan Suleymaan bin Salim bin Bayazid kii labaad bin Maxamed Faatix waana boqorkii tobnaad ee Cusmaaniyiinta dawladda Cusmaaniyiintuna waqtigiisa waa waqtiga ugu ballaarneed waana dhowrka boqor isku dayna adduunka kaligood ka taliyaan waxyaabo ku gabi jiray Sultan Suleymaan waxa kamid ah hal sijaayada laba suufiyo ku filan karta laakiin adduunka laba boqor kuma filan karo ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta wuxuu dhashay Suleymaan 6 November 1494 magaalada Trabzon ee dhacda badda madow wadanka Turkiga 7 sano jir markuu gaaray wuxuu bilaabay inuu barto taariikhaha fiqiga aadaabta iyo taktikooyinka military jaamacad ku taala magaalada Constantine ama Istanbul sida hadda loo yaqaan Suleymaan markuu 17 jir gaaray waxa loo dhiibay xukunka magaalada Kafa haddana magaalada Minisia mudirna wuxuu ka talinayay magaalada lagu magacaabo Adarna sida caadadu ahayd boqortooyada Cusmaaniyiinta wiilka boqortooyada ka tirsan markuu qaan gaaro waxa loo toobari jiray xukunka oo magaalooyin baa loo dhiibi jiray yar soo xukunkii maamulka ugu barto kaligiina lagu masiideyn jiray waxa la raacin jiray hooyadii ama macalinkiisa kadib markuu geeriyooday aabihii Salim Suleymaan wuxuu ku soo laabtay magaalada Constantine wuxuuna kala wareegay aabihii xukunka 520 saasuna ku noqday boqorkii tobnaad ee dawladda Cusmaaniyiinta aabihii Salim markuu geeriyooday wuxuu uga tagay Suleymaan dawlad ballaaran oo midaysan oo awoodna leh laakiin Sultan Suleymaan markuu qabanay xukunka 20 jir kaliya marka waxa bilaabantay dhowr nin la farnan lagu qiyaaso oo ka talin jiray magaalooyin hoos yimaada dawladda Cusmaaniyiinta in amartida ku sameeyay sidaan wiilkan yar cunuga waxa ma maamuli karo ka faa'iideysto ka goosto Suleymaan markuu maqlay arintaas dagaal ayuu la galay 40 nin dagaaladii bay ku dhinteen dib waa hadana uu bilaabay dawladdiisa mideeyo dawlad adag oo midaysan ka dhigo markii dawladii deganaansho gashay kadib Suleymaan wuxuu go'aansaday inuu sii wado furashooyinkii uu Maxamed Faatix ee dhankaas Yurub waqtigiisii qaaradda Yurub waxa ugu turturoonada ugu awood badnayd dawladda Hungary la yiraahdo dawladda Hungary markay maqleen wiil 20 jir dawladdii Cusmaaniyiinta xukunkeedii la wareegay waxay bilaabeen inay dhammaan heshiisyadii ay la galeen dawladda Cusmaaniyiinta oo dhan sida inay jizyada bixiyaan oo kale jizyada bixin jireen dawladda Cusmaaniyiinta siin jireen waxay bilaabeen jizyadii iyo wax walba dib uga laabtaan oo heshiiskii laalaan hatta safiiru Suleymaan al-Qanuunigu u diray dhankaas Hungary uu rabay inuu ka soo qaaday jizyada kurkii ka jarnay soo dilay Suleymaan markuu maqlay arintaas aad buu caanooday waxaanu hadalkiisa caanka ahaa maano noolba safiirkayga la dilay berri bay ogaan doontaa ciqaabta ka raacday reer marka kadib dagaalkii waxa dhacay Muhaaks la magac baxay ee taariikhda gala 2 saacadood kaliya socda Hungary lagu jabiyay insha Allah muuqaal xigeenka ka hadli doono dhanka ciidamada badda Suleymaan wuxuu lahaa ciidamada badda ugu xooggan waqtigaas waxaana uu maamuli jiray Khayruddin Barbarossa ninkii lagu magacaabi jiray dhowr dagaal ay Isbaanishka ku wada galeen xeebta dhexdeeda waxaana ku guuleysteen ilaa 7 jeer inay jabiyaan Isbaanishka kana soo badbaadiyeen 70,000 oo muslimiin kadib burburkii dawladdii Andalus lagu magacaabi jiray Suleymaan kaliya ma ahayn dagaalyahan soo kale wuxuu ahaa nin shaacira culimadana aad uga dambeeyay aad u ixtiraami jiray Suleymaan al-Qanuuni sababta lagu bixiyana waxa ahayd maadaama qawaaniintii u badnaa dawladda Cusmaaniyiinta ku dhaqmeen ilaa mid maalinkii ka burburan uu soo dejiyay Suleymaan soo kale wuxuu ku hadli jiray 4 luqadood si fasaxa Carabiga Farisiga Serbi iyo luqad lagu magacaabi jiray Jaaqiya oo loo dhan jiray waxa ka tirsaneed waxa la sheegay in ahaan jirtay lahjad ka tirsan luqadda Turkiga dagaalada badankooda Suleymaan isaga ciidanka hogaamin jiray wuxuuna qaaday 13 dagaal oo aad u muhiim ah wuxuuna ku furtay 360 qalcadood waxaanu ka talin jiray 12 caasimadood oo waqtiga adduunka ugu xadaarisanaa ilaa haatan qaarkood ugu xadaarisan sida Istanbul oo kale Budapest Jazaa'ir Baghdad iyo qaar kale oo badan Suleymaan boqortooyinka waqtiga adduunka jiray dhamaantood ka wada baqi jiray mar Isbaanishku isku dayeen inay Holland qabsadaan Holland waxa uu dartay gargaar Suleymaan
suleymaanna ciidan iyo waxba uma soo dirin keliya wuxuu diray 400 oo labiska dharka ciidankiisii inkishaariyiinta lagu magacaabi jiray ciidankii Holland markii goobtii dagaalka soo istaageen dharkii inkishaariyiinta ciidamadii Cusmaaniyiinta cascasaaba ku labisteen Isbaanishka markay arkeen dharkan cascas iyo ciidamada dharka cas waxay moodeen in Cusmaaniyiintu soo caawiyeen Holland kadibna goobtii dagaalka Ayr si bila hadal ka laabteen 30 sano muddo ahna dhankaasi Holland uu ma soo jeesan oo dhankaasi Holland ma soo eegin dawladda Cusmaaniyiintu waqtigiis waxay fidsaneen saddexda qaaradood ee waqtiga la yaqaan Yurub, Asia iyo Afrika badka dawladdiisu wuxuu gaaray 15 milyan oo square aabihi laakiin Saliim markuu kala wareegay badka dawladda waa bii kala wareegay 6 milyan oo square kaliya isagu markuu ka tagay 15 milyan oo square buu ka tagay waraayadii caanka ahaa ee laga hayo Suleymaan al-Qaanuun waxa kamid ahaa ninka maanta lacag qaata barina amar buu qaata xukunku maaha mid la isku xukumo seef waa mid la isku xukumo cadaalad markan dhinto gacantada ka soo saar la xashka si ay dadku u arkaan xataa suldaanka inuu adduunkan ka tagay soo gacantiisu eber tahay waxyaabaha taariikhyahanada reer Yurub ka yiraahdaan suldaanka waxaa kamid ah sida taariikhyahankii lagu magacaabi jiray Halmar wuxuu yiri Suleymaan isagaaba kaga khatar badnaa Yurub Salaaxudiin laftarkiis soo kale taariikhyahankii Harold Rengres wuxuu yiri maalinku dhintay Suleymaan waxay kamid ahayd maalimaha ciidii nasaaradu dabaaldegaan wuxuu geeriyooday Suldaan Suleymaan Ilaahu naxariistay 6 Sebtembar 1566 isagoo magaalo Yurub ku taala Go'doon ku haya si dabiici ah ayuu geeriyooday laakiin daadiisi 70 xanuuno fara badan buu la noolaa intaanu duulaankan soo bixin dhakhaatiirtiisu waxay kula taliyeen inaanu bixin oo xaaladiisa caafimaad wanaagsaneen aanu duulaanka u bixin laakiin wuxuu ugu jawaabay waxaan jeclaa inaan dhinto anoo Ilaahay dartii u baxay marka faras ma fuuli karin xanuuno badan oo haya awgeed marka waxa lagu qaadi jiray gaadiidkii waqtiga alaabta ku qaadan jireen dadku wuxuuna taliyay muddo 46 sano ah waxyaabo ku dardaarmo waxa kamid ah in markuu dhinto sanduuq uu meel ku tilmaamay lala aaso markii meydkiisa la soo celiyay sanduuqii baa la soo qaaday culimadii markaa waxay bilaabeen inay yiraahdaan sanduuqana la farwaayo hadii lacag ama dahab waxaasoo kale ku jiraan lama aasi karo qof meeyay dahab iyo lacag iyo waxaas marka waxay bilaabeen sanduuqii faran markii sanduuqiisa oo faran weeyaaban waxa ku jirtay fatwooyinkii ay culimadu fatwoodaan ee uu ku xukumi jiray dadka ayaa ka buuxay oo wuxuu yiri waxaan rabaa in Ilaahay la hortago in markhaatiga noqdaan maalinka aakhiro 2011 waxa soo baxay فيلم مسلسل حريم السلطان لو مغعابو كاسو تاريخ سلطان سليمان القانوني كفوق isaga lagu matalay laakiin xaqiiqdu way ka fogto oo gabigiisu suldaanka waxay ka soo qaadeen suldaan dumar oo dhex jooga gabigiisu baashaali waxa ku jira laakiin xaqiiqdu saamahan 46 sano talnay nin dagaal ku jiro goob dagaal taagnaabo oo faraskiisa saarno ciidamada hogaaminay walibana ma ahayn intuu caasimada iska fadhiista amar bixin jiray jihaadkana aad buu jeclaa nasashadana ma baaqoonin iyo raaxo gabadha filinkan keenta Xariim Sultaan lagu magacaabo waa gabadha Almaaniyada waxa la sheegay inay tiri markan taariikhda midkayga haloogo macna gabadh taariikh aqoon buu lahayn weeyo muqaalkina maanta intaas ku eegay muqaalka xiga waxaan kaga hadli doonaa hadii Ilaahay ka dhigo dagaalkii ugu caansanaa Suleymaan al-Qaanuuni galab ee lagu magacaabo jiray Muhaakis 2 saac kaliya ku jabiyay dawladda Hungary